Fanaanka caanka ah ee Omar Barbar ayaa afka furtay waxaana ka hadlay muuqaallo dhowaan lagu baahiyay baraha bulshada oo lagu sheegayo in uu uureeyay gabadh, taas oo cod la soo duubay la soo geliyay baraha internetka gaar ahaan social media. Omar Barbar oo aad uga cadhooday muuqaalkii laga baahiyay ee been abuurka ahaa ayaa waxa uu ku sheegay inuu la xisaabtami doono kuwii soo maleegay beentaasi ee soo geliyay baraha bulshada. Muuqaalkan laga soo sameeyay fanaanka caanka ah Omar Barbar ayaa waxaa ka dhex muuqatay gabadh codkeeda iyada oo qaylinaysa, sheegaysana in uu uureeyay. Si kastaba ha ahaatee, fanaan Omar ayaa gebi ahaanba waxa uu ku tilmaamay in ay waxaas yihiin wax makaba jiraan oo ay tahay wax ay dadka soo dhoobeen. Sidoo kale, fanaanka ayaa waxa uu wacd ku maray in dadyowgii soo sameeyay uu dabageli doono, weerarna uu ku qaadi doono, aanu sidaasi kaga hadhi doonin. Waxaa maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada qabsanayay fadeexado kala duwan oo laga sameynayay fanaaniinta caanka ah, kuwaas oo aad moodo in ay hadda aad u soo badanayso. Fanaan Omar Barbar ayaa ku jira fanaaniinta ugu waaweyn Soomaalida, kaas oo sumcad iyo sharafba ku dhex leh bulshada dhexdeeda. Waxaana Omar Barbar ku jira fanaaniinta aadka loo jecel yahay, waxaana ku soo shaabaxay heestii ugu horeysay ee "Ii Tuur Barbar", taas oo gebi ahaanba qabsatay bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda, halkaasi oo ay dadku ku barteen. Fanaan Omar ayaa ah dadka qurbaha ku nool, halkaasi oo uu ku sugnaa in badan. Fanaanka ayaan soo duubin wax muuqaal ah oo uu gebi ahaanba ku beeninayo hadalkaasi baraha bulshada la soo dhigay, laakiinse barta uu ku leeyahay Snapchat-ka ayuu ku faafiyay qoraallo, kaas oo uu kaga digayo in laga been abuurto. Waxaana uu sheegay in ay shakhsiyaad gaar ah ay daba galeen, kuwaas oo doonaya in sumcaddiisa iyo sharaftiisaba ay dilaan, sida uu sheegay fanaanka.